xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Gaas oo warbaahinta qaranka Soomaaliland kula hadlayay xafiiskiisa ayaa bulshada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ugu baaqay inay ka feejignaadaan xanuunka fayraska ah ee dunida faraha ba'an ku haya ee coronavirus isla markaana ilaaliyaan fayadhowrka bulsho iyo wax kasta oo ka hortagi kara xanuunkaasi sidoo kalena waxa uu xogayuhu fariin u diray dhaqaatiirta culimada ganacsatada iyo warbaahinta oo uu faray inay qaybtooda ka qaataan ka hortagga xanuunkaasi maanta taariikhdu tahay 19 bishii 3 2020 waxaan shirkan jaraa'id u qabanay maanta inaanu kaga hadalno ama bulshada wax badan ugu soo gudbino fariin ugu gudbino fariintaas oo daaran fariimihii indhawatba la dirayay ama ka dawlad ahaan ama dawladaha badan ama adduunka uu dirayay ee ahaa in la iska ilaaliyo maadaama cudur xanuuna oo halisa oo caabuqa uu ku fiday adduunka oo dhan dacaladiisa u gaaray oo wax weey cid walba ay ka qaylisay sidii looga digtoonaanaha la isaga ilaalin lahaa ogtiino kulay madaxweynuhu uu sheegay Jamhuuriyadda Soomaaliland way sheegtay in maanta 19 bisha oo maanta ah in wixii ka bilowda goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka isugu yimaadaan iyo xafladaha iyo aroosyada intaba la mamnuucay waxaa muhiim ah kale in la raaciyo intii loo sheegay iyada waa la inoo sheegay hore lagu shaaciyay waxaa muhiim ah in la raaciyo fayadhowrka meelaha laga cunteeyo iyo meelaha laga qaxweeyo oo dadku ay isugu yimaadaan meelaha laga cunteeyo wax weeye waa meelaha ugu badan ee bulshadu isugu timaado waxyaabaha ay karinayaan haday tahay cuntada iyo haday tahay qaxwaha loogu yimaado laga qaxweeyo inay ilaaliyaan nadaafadooda shaqaalaha nadaafadiisa inay ku dadaalaan waxa kale oo jirta iyagana xaafaduhu inta badan waxay sameeyaan wad aragteeno biyo iska soo sayra meelaha biyo lagu soo sayro ama xaafaduhu biyo ku sayro waxa u baahan tahay iyadana in la nadiifiyo waxaan ka hadlaynaa waa caafimaadkeeni waa danteeni waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ku adkeynaya bulshada reer Laascaanood sidii ay uga hortagi lahaayeen wax kasta oo laga hortagi karo xanuunka fayraska ee fidaya ee ku wareegaya adduunka oo dhan ka qayliyay ilaahay ba wax ilaaliye wax kasta in ka hortagi karno in ka hortagno wasaaradda caafimaadku iyada u heegan oo u taagan oo shaqaale meel walba geysay haday tahay koonayaasha laga soo galo iyo hadii ay tahay gudaha magaaladaba had celino shirkadda Sagal Furniture oo runtii sameysay ka qayb qaadatay ka hortagga caabuqan bulshadana ku soo kordhisay waxyaabaha lagaga hortago ama qalabka lagaga hortago ku soo kordhisay faraxalka haday tahay waxyaabaha lagu farxashay la isticmaalo haday tahay culimada diinku wax weey waa meesha ugu muhiimsan wax walba inta badan goobaha la isugu yimaado masaajidada ugu fara badan masaajidadu waxay u baahan yihiin in khudbadaha jimcaha wadaadadu ay ku darsadaan iyo khudbadaha kale ay qabanayaan maxaadirooyinka ay ku darsato culimadu ku darsato waxay gelinta in laga hortago xanuunka fayraska ummadan looga duceeyo kulligeena looga wada dardaarmo saxaafadu wax weey waa meesha qura ummadda waxa wanaagsan gaarsiin karta waxa xunna ku rogi karta waxaan leeyahay wax badan baa laga qayb qaataa wax badan baa la duubaa wax badan baad baahisan sii deysaan inaad sii deysaan oo baahisan dhammaan wax kasta oo ka hortaga oo iyo wacyigelina oo laga wacyigelinayo bulshada in xanuunka fayraska ay kaga badbaadayaan inaad baahisan oo sii deysaan oo kala shaqeysaan oo ummadda wax weey u hurtaan oo la xasuusto doorkii saxaafaddu ay lahayd taariikhda lagu xuso Walibaan Axmed Ciise Liban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood xarunta gobolka Sool.